salaadan qofka tukadahay uu naarta galayo ilaahayna uu u caroonayo. nasiib daro dad badan oo muslimiin ah ayaa tukada salaadan. subxaanallah, haddii aad muslim tahay waxaan kaa codsan inaad muuqaalkan like saarto siina share garayso si uu u gaaro dhammaan muslimiinta ay u ogaadaan ugana digtoonaadaan. sida uu nabigeenu sheegay, qofka wanaagga faafiya qofka sameeya ayuu ku ajar yahay. ugu yaraan 3 qof asxaabtaada ka mid ah u share garay muuqaalkan. ilaahay subxaanahu wuxuu noogu caroonayaa kagaabinta iyo fududaysiga aan diinteenna fududaysanayno. maxaa yeelay ilaahay insaanka wuxuu u abuuray cibaado oo kaliya, wuxuuna ka dhigay mid ku imtixaaman oo ku ibtilaysan adduunkan dhexdiisa. sababaha ugu waaweynna waa markuu qofku hilmaamo gudashada faradkii maalinlaha ahaa, waa salaadee oo adduunyadiisa uga mashquulo. waxaa jirta salaad qofka tukadahay uu naarta ku galayo. haddaba waa maxay salaadaas? ilaahay subxaanahu wuxuu ku yidhi qur-aanka kariimka ah, faweylun lilmusalliin. ilaahay subxaanahu wuxuu noo sheegay tilmaamaha gaalada iyo tilmaamaha dadka cusaada ah ee mu'miniinta iyo cadaabka sugaaya. laakiin aayadan waxaa ku jira goodin iyo hanjabaad loo goodinayo qaar ka mida dadka tukada. waxaa la sheegay weylun inuu u sugnaaday kuwa tukada haddana salaadooda ku sahwiya. waxaa la sheegay horta weylunkan uu ilaahay ugu goodinayo inuu yahay waadi ku yaala naarta jahannamo dhexdeeda. marka waa kuma dadka uu waadigaasu sugayo oo lagu magacaabay saahuun. waa inaan ogaanaa oo baranaa tilmaamahooda si aanan annagu uga mid noqon. haddii aan ka mid noqonnana si aan isaga saarno hadda inta aan nool nahay. dabcan waa dad tukada sida annagoo kale dadka loogu goodiyey waadigaas jahannamo ku yaala. qaybta koobaad oo dadkaas ka mida waa dadka salaadaha waqtigooda ka dibdhiga. salaadii way tukanayaan laakiin waqtigeeda ayay ka dibdhigayaan. casirki ayaa ku gelaya asagoon weli duhurki tukan. maqribka ayaa baxaya asagoon weli casirki tukan. hadhow ayuu salaadihii jamcinayaa hadduu rabo. qaarkoodna way iska seexanayaan xilligii salaada. hadhowna waxay dhahayaan rufica alqalamu can 3. 3 qalimka waa laga kor yeelay. dad ayaa safara dhaadheer iska gelaya, diyaarado iska raacaya, salaadihiina fududaysanaya. qaybtaasu waxay ka mid yihiin assaahuuna canisalaah, kuwa salaadooda hilmaansan. qaybta labaad waa kuwa aan weysadooda hagaajin, dahaaradooda hagaajin ka hor intaysan salaada u diyaargaroobin. wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasalam, yatawada'u haada walaa yuxsinu walaa yastanzihu min albowl. waa uu weysaysanayaa, kaadidii iyo najaastiina iskama hagaajinayo, weysadiina ma gaarsiinayo xusullada, sidoo kale cirbaha ma dhaafinayo. micnaha meeshii loogu talagalay in la gaarsiiyo xibnaha oo faradka ahayd weysada ma gaarsiinayo. wuu boobsiinayaa, xibnihiioo kala qallalan uusan biyaha si fiican u gaarsiin ayuu iska tukanayaa. marka waa dad tukanaya, weliba 5 salaadoodba tukanaya. wuxuu yidhi ibnu cabbaas, waa qof tukanaya, haddii uu tukadana aan wax ajar ah ka rajaynayn, haddii uu ka tagana aan ciqaabka ilaahay ka baqayn. wuu tukanayaa laakiin wax iska caadi ah ayay la tahay. ilaahay inuu arkayo ma dareemayo, inuu ilaahay hor taagan yahay ma dareemayo, ajarna kama suganayo. wuxuu u tukanayaa sidii wax lagu qasbay, qasab uusan wax nafci ah ka helayn. marka faweylun lilmusalliin, waadiga jahannamo wuxuu u sugnaaday kuwa tukada haddana aladiina hum can salaatihim saahuuna laahuun, waa kuwa salaadooda hilmaansan. sidii la rabayna uma gudanayaan, waqtigii la rabayna kuma gudanayaan. ilaahay ayaan ka magan galnay sii faafi muuqaalkan.